وأنا ونفسي نجستيال ملك العالم كل شوكتان هالكني واردي وعينوا كنا سود وادي نجستيال برنامج كني حيسها قال كالها مقل أو معنى balse taas oo dhan ka hor dhageystayaal inuu wada dhageysano mid ka mid ah heesaha ay Soomaalidu ku luuqayso oo barnaamijkan aan ugu talagalay اسم قرميلانو الماضي دوار لقررتا أتي حاجة مرقسمتا هاي تدمير لبدو بشا اسم قرميلانو الماضي دوار لقررتا مرد مدحيدي تحي مجهد اسكمدية مرد مدحيدي تحي مجهد اسكمدية هذا ميدامي كريم رسول ولا قتلا مرد مدحيدي تحي مجهد اسكمدية مرد مدحيدي تحي مجهد اسكمدية هذا ميدامي كريم رسول ولا قتلا barnaamijkeena maqal oo micnaa dhageystayaal oo toddobaad kasta ku soo qaadan doono mid ka mid ah mas'uuliyiinta Soomaaliya iyo Somaliland ayaa waxaan jecelahay inaan toddobaadkan aan ku iba furo mid ka mid ah mas'uuliyiinta Somaliland ugu caansan waa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee uu injineer Faysal Ali Waraabe inta aynu ku guda jirno dhageystayaal baahinta barnaamijkeena maqal oo micnaa waxaynu ku cadeyn doonaa su'aalaha ay ka mid ka yihiin waa maxay mowqifka Faysal Ali Waraabe ee ku wajahan kala go'a Soomaaliyeed iyo sidoo kale ma dhaba dhaliilaha uu mudane Faysal Ali Waraabe u soo jeediyo xukuumadda madaxweyne Axmed Siilaanyo waa maxayse hamiga Faysal Ali Waraabe ee ku aadan hadii uu talada dalka qabto in uu Soomaaliya la midoobo iyo in uu Somaliland ay ka go'do Soomaaliya su'aalaha dhowrka ayaynu kaga jawaabi doonaa inta aynu ku guda jirno baahinteena barnaamijkeena xiisaha leh maqal oo micnaa oo toddobaadkiiba hal mar dhageystayaal idin ka iman doona radio Caynaba xarunteeda magaalada Hargeysa الله كنا حريصه فاطمة خليف مقال mid ka mid ah beejadka ay ku luuqayso ayaa dhageysanayseen waxaana dhageystayaasha ugu bushaareynaa inay barnaamijka kaga qayb qaadan karaan araa'dooda oo ay ku soo gudbin karaan qaybta xiriirka ee radio Caynaba waad ka heli kartaan ciwaanada ku qoran qaybta xiriirka ee shabakada caalamiga ee Caynaba News aan ku bilaabo dhageystayaal waa maxay mowqifka Faysal Ali Waraabe ee ku wajahan midowga Soomaaliyeed waa kan mudane Faysal Ali Waraabe oo ka jawaabay su'aashaasi anagu siyaasadii waxa weey war anagu Soomaaliyeed ma diidani dadka horteed baan isku tagnay waxay ahayd inaynu Afrika ugu fiicnaado waxaana dad isku diina isku Afrika iyo Israel Somaliland waa nahay dawladda waanu samaysanay laakiin ilaa hadda adduunku wuxuu noola macaamilaa inaan baarta Soomaaliya nahay ninka u yimaada UN كاركو سيتا waxa ku taala wakiilka Soomaaliya ee kuma taala wakiilka Soomaaliland iyo Soomaaliya kuma taala adagay wacdiga ahadiga haylobu adagay wacdiga ahadiga haylobu mar kale dhageystayaal waa maxay mowqifka Faysal Ali Waraabe ee ku wajahan midowga Soomaaliyeed mar kale waa kan mudane Faysal Ali Waraabe oo su'aal taasi ka gadisan ka bixinaya midowga Soomaaliyeed meesha ma qabato Soomaaliland tariya wax iyo kuwii wax qabsay in la qadiyo oo nabadoodii la wiiqo
waxaan ku sheegnaa UN-ta Somaliland iyo Soomaaliya kursi baan wala yeeshay United Nations-ka maanta magacii way kala baxeen iyaguna Soomaaliya la baxeen koodii xankii anaguna Somaliland uma aragno inay taa xaq inay kursigii naga dhaxeeyay kaligood fadhiyaan wixii aan lahayn in dhaxdooda fadhiyaan taa waxaan leeyahay waan dacwad baan ka qabnaa aan ku sii socono dhageystayaal barnaamijkeena maqal oo micne ee mar kale waa maxay mowqifka Faysal Cali Waraabe ee ku wajahan in ay Somaliland iyo Soomaaliya ay wada hadlaan isla markaasna ay ka xaajoodaan arrimaha dhex yaala Faysal Cali Waraabe ayaa su'aashani ka jawaabaya mar hadaa la yiri arrinta Soomaaliya u taala waa qasab in la wada hadla Soomaaliya loo sameeyay structure-keedii iyo leadership-keedii dan aan wada fariisano daan isqancino gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee uu injineer Faysal Cali Waraabe oo inta badan aad ku maqashaan warbaahinta isagoo ka dhaliilaya xukuumadda madaxweyne Axmed Siilaanyo ayaan jecelahay marka hore inaan idiin soo gudbiyo mid ka mid ah hadalladiisii ugu kulkulaa ee uu ka jeediyay warbaahinta isagoo ku dhaliilaya xukuumadda madaxweyne Axmed Siilaanyo fadhiyada ay la fadhiisato maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya ee dhageysi haboon xawiyay siyaasadda hadda dawladdan ku socota Maxamed Siilaanyo oo si dadban dalkii ku daraysa waliba anagoo intii ka taag daran bariga hore waxaan ahayn waqooyi iyo koonfur baa isku darsamee imika koonfur oo ah 5 xubnood ah oo xubno isku bixisay maamul goboleedo iyo anagoo xubin lixaad ah habkii uu dhismi lahaayeen buu ku socotaa oo wixii la qaybsanayo iyo shirarkiiba anagoo la mid ah Galmudug iyo magaalada Garowe administration iyo kuwa soo socda ay shirka soo qaybiyaan oo taasana ku qaylinay intaasi haddii aynu kaga soo gudubno dhaliilaha uu Faysal Cali Waraabe u jeediyo xukuumadda madaxweyne Axmed Siilaanyo bal aynu isweydiino waa maxay mowqifka Faysal Cali Waraabe ee ku wajahan la hadalka Soomaaliya haddii uu talada dalka xisbiga u cod ku guuleysto kaasi oo gudoomiye ka yahay aynu dhageysano mar kale Faysal Cali Waraabe oo ka hadlaya hamigiisa ku aadan wada hadalka Soomaaliya ee ay Somaliland iyo Soomaaliya ay wada galaan waxa noo taala marka intaan la wada hadal inaan hortaan koonfur amba Soomaaliya aan nabadeeda wax ka qabanaa oo maamulkeeda ay nabadgelyada dhisnaa oo saaxiibiyo ka yeelan ka sameysana fikradiyada qaba oo na taageera markii aynu Soomaaliya sameeyno nabadgelyo ku soo xigno in la wada fariistaa dhageystayaal qaybteeni koowaad ee barnaamijkeena maqal oo micne intaasi ah ayuu nagaga eegyahay tan iyo kulanti dambe waynu toddobaadka xiga aynu ku kulmi doono barnaamijkeena maqal oo micne waynu toddobaadkan ku soo qaadanay injineer Faysal Cali Waraabe qaybtiisii koowaad waa naga intaasi qaybta dambe haddii eebaha awoodda leh ogolaado ayaan idiin soo gudbin doonaa toddobaadka dambe waa anigoo Salmaan Sahal Jaamaca iyo dhammaan bahda radio Caynaba oo idin leh nabadgeliyo Thank you.